daawadayaal iyo dhegaystayaal waxa khadka si toos ah ugu jirta fanaanad qaran Saafiya Tusmo oo aad la socotaan tan iyo shalay inay baraha bulshada qabsatay oo la wareejinayo sawiro kuwaas oo laga soo xaday moobilkeedii oo laga jabsaday Saafiyo soo dhawow sidee wuxuu dhaceen wandhow walaal sheena oo salaamay adiga dadka ku dhageysanayaba walaalo shalay subaxdii baan ogaaday in maaragtay social media hay'adan maaragtay oo baraha ka baxay app baan soo dejisanayay YouTube wax laga soo dejisto dan markaad app soo dejisanayso wuxuu ku weydiinayaa Apple ID Apple ID gaan ku fiirinay dan waxaan ogaaday Apple ID password inuu ila qeynay dan waxyar kadib waxaan helay Snapchat duub dan Snapkaygi oo log out lay sameeyay baan arkay Facebook aan ku soo qoray markaa in Apple ID-gaygi iyo maxaan ku raadaa una gacantayda ku jirin Facebook oo ku jira baa log out lagu sameeyay oo la iga saaray saas baan yaan ku ogaaday oo maaragtay ay waxay ugu bilowdeen waa gartay Tusmo mobilkaagii iyo Apple ID-gaagii haddii lagala wareegay dhibaato intee leeg baa lagu geystay maxaa mobilkaagii lagala baxay niyo dhibaatada intaad arkaysaan baa la geystay sawiradeedii in ma aragtay maaragtay la wareejiyo sawiradii noogu jiray ay banaanka u soo baxaan taas baa la gaarsiiyay horta mistake koobaad aniga sameeyay sababtaan u sameeyay aan doonayay dadka inaan la wadaago Apple ID-ga markii la ii sameeyay T-Mobile company-ga la yiraahdaa ii sameeyay waxaan ka qaaday sawir screenshot baan ka qaaday screenshot-kaas baan ku haystay sawirkaas aan ku haystay telefonka oo wuxuu ku jiray camera roll-ka ayuu ku jiray sawirkaasi macnaha waxaan iskugu blame garanayaa Apple ID-gaagii baa la jabsaday oo telefonkaagii baa lagu tagay ismalahi because Apple ID-ga sida loo jabsado way adag tahay qof on telefonkaaga gacanta ku hayana waxa la galay Snapchat-kayga markii lay yaa sawiradan because waxaan ka maqnaa telefonkayga waqti dheer baan kala maqnay markaan soo noqday oo aan telefonkayga aan ku noqday waxaan arkay Snapchat-kayga oo log out ah Snapchat log out ma sameeyay unless telefonka galo mooyaane passwordkayga caadigan ku galay oo ii furmay marka waxaan aaminsanahay Snapchat-kayga in la loogula jiray Facebook-gayga waxaa lagu arkay waxaan ku arkay telefoonno kale oo aan kayga ahayn oo lagu isticmaalay marka horta Apple ID-gayga dad kale Apple ID-gu sidoo loo jabsan karaa waxaan ani aaminsanahay password iyo email aan screenshot ka qaaday in factory on lagu galay oo password on la iga bedelay Saafiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed arrinta kugu dhacday aad bay uga xumaatay oo u cambaaraysay oo u hadalhaysa laakiin waxa jira dad isweydiinaya Tusmo maxay isu sawirtay oo sawira nooca oo kala ah mobilkeeda ugu kaydsanaysa dadka maxaa jawaab u siinaysaa horta waan mahadcelinayaa dadka Soomaalida arrintii xun waan mahadcelinayaa dad kale Tusmo maxay isku sawirtay Tusmo horta malaa'ig ma aha human baan ahay bashar baan ahay sawir waan gali karaa dad baa iyagoo maydhanaysa sawira dad baa iyagoo qaawan oo muriga ganaysa sawira aniga waxa weeyaan sawiro qofaan jecelahay la galay baan galay sawir keligay yahay madaxa ii qaawan baan galay mana ahayn sawiraan ugu talagalay bulshada inay aragtay sawiraan naga gaar bay ahay marka dadka Tusmo waa qof weyn ma aragtay inay sawirada nooca ma ahayn amba haddaad weyn tahay adiga horta koo bashar baa tahay wiilman baa tahay siiba aman ayaan ahay saas baaban shino maanta farahayga soo qabxay social media baabay sawiro intaas waxaan hadii ku jiraan dee way soo gaari lahayd marka walaalo kuwaysa sawiraan haddana dee waaban ku waalanay oo labada shay Soomaali maanta ku waalatay waxa weeyaan tagging pictures iyo social media lagula cararo marka dadka sidaa leh waxaan u sheegayaa inaan adiga kula mid ahay human ahay bashar ahay dadka u galay qaarkiin oo qoysanaya ayuun baan sawirada u galay mana ahayn sawiraan ugu talagalay inay gacantiina soo galaan sawiro private oo annaga noo gaar oo labada yada face
waran keliya haati quseeyo u gaar bay ahay aada u weyn qof walbana nolol gaara waa leeyahay yaa tuhmaysaa inay moobeelka kaa jabsadeen oo sawiradaadii iyo macluumaadkaagii kale ee ku gaarka ahaa baraha bulshada ku faafiyey wallahi qofkan haddaan garanayo dee maanta waan soo dhigi lahaa 2 sano ka hor baa facebooka iga jabsaday facebookyo kaloo feeg ahoo magacayga lagu isqortay oo dad lagu aflagaadeeya dad baa furtay waagaasi waa la ii soo celiyey facebooka laakiin sanad kadib dadkii iga jabsaday way isoo waceen waxayna i weydiisteen cafis inaan cafiyo tiim bay ahaayeen gabdhay u badnaayeen bar ka mid la soo hadashay waxay i weydiisteen cafis mama malaynaya kuwaas inay soo noqdeen maadaama saa isku cafine haddaan ogaan lahayoon in uun kuluya hayn lahaa maanta qofkaa talo uma dhigteene waan keeni lahaa markaas aad idinku ka tihiin ayuun baan anigu ka ahay sanadka markii koobaad la iga jabsaday maaha dhowr bilood ka hor sanadkii hore mar la iga jabsaday laakiin waxa ii soo celiyey nin la yidhaahdo guuleed daadax oo reer Minneapolis ah baa ii soo celiyey wuxuu iigu soo celiyey less than 2 hours oo gacantayda maqnaa isagaa ii soo celiyey kulbii dadkii un inay haddana mar labaad jabsadeen inay cid kale tahay ma garanayo marka haddaan garanayo shiino qofkaasi adna baan kula wadaagi lahaa ummaddana aan horkeeni lahaa sababtoo amaba jirto sababa u qarsan lahayd qof cadowa oo ilaa xadka kuu dhibaateeyey tusmoy waxaa jirta in baraha bulshada lala wareegayo cidda dhibaatada kuu geysatay oo muuqaalada idin gaarka ahaa baahisay inay tahay oo ahayd odaygaagii adigu ma aaminsan tahay oo ma jiraa tuhun isaga kaa galay maya sidaan anigu kahay buu ka yahay dhaawac anigay soo gaadhay kiisaa soo gaadhay siiba aniga hadda hal nabar baa soo gaadho dee waxaan igu dhacay baa igu dhacay isagu laakiin labaa ku soo gaadhay isagiioo la aflagaadaynayo oo dembigii loo haysto uuna gelin iyo isagiioo aniga igu dhacay isagana ku dhacay marka walaalo shaqo kuma laha beri buu ka yahay taas anigaa caddaynaya anigaa huba imana qoodho inuu dhibaato caynkaas i gaarsiiyo kamana suurtowdo oo shaksi noocaas u samaysan ma aha shaqana kuma laha walaal macaan aada u mahadsan tahay safiyo waxaa jira iyadana baraha bulshada in lagu qorayo dadka qaarkood in hadda ka hor Hargeysa booliiska Soomaaliland ku xireen oo moobeelka ay ka qaateen oo muddo ay ka haysteen dadkaas ku eedeynaya booliiska Soomaaliland laftigooda in laga yaabo inay muuqaalada tan iyo macluumaadka kan ay ka baahiyeen booliiska Soomaaliland wax tuhuna oo ah ka qabtaa ma jira horta walaalo booliiska Soomaaliland waa dawlad bay ka shaqeeyaan oo wadanka dhan dadka safety-gooda ilaaliyo weeyaan waxaanay booliis u yihiin waxa weeyaan dhibaatooyinka ummadda inay ka hor joogtaan waanay ka weyn yihiin dad laba qof oo amba isdhunkanaya amba isla seexanaya amba sawda galay inay soo dhigaan shaqo kuma lahaan karaan oo walaalo uma maleeyo waa run waa la xiray 13 saacadood baan xidhnaa labadeeda qof yarka ku sawiran labadeedaba waa dhaxay isaguna saas oo kale telefon isagu uu aniga siiyey baa layidhi khad baa soo galay aniga telefonkayga waxaa layga haystay dhowr laati beri isaga kiisana waxaa laga haystay bidhaalo wiilkaas telefonadeedii waa la noo soo celiyey no reason sawiraas la galay ay usoo baahinayaan booliiska Soomaaliland walaal shaqo kuma laha mana tuhunsani umana malaynayo inay arrimaha noocaas ka suuro booliiska macluumaad badan aad leedahay maxaa ku yiraahdaayay baraha bulshada la dhigay waa lagu dhibaateeyay oo waxa laga jabsaday mobilkaagii aad baa lagu hadalhayaa hadda xaaladaadu Safiyo waa sidee walaal fiicanahay alxamdulillah horta I was shocked yesterday aad baan uga xumaaday in maaragtay falka caynkaas la igula kaco especially markaan arkay sharciga aroortayda oo sawirada la socda how low qofkani uu yahay oo qof mental ah oo aqligiisu aad u hooseeyo yahay na wuxuu siraa dareyskeedana banaanka soo dhig sawirada sharcigeedana banaanka soo dhig waan damqadayo dee hooyahay carruurtaydii oon ka maqanahay baad aragtay mediaha ka arkaya arrimaha noocaasa laakiin anigu tusmaan ahayo qof sawir ay gashay in lasoo dhiga iyo media in
laga soo caadiyo in waxyaalahaasi ay dee wax yeeli karaan waan ka weynahay waxna yeeli mayso waxna ima yeelin caafimaadkaygu fiican yahay alxamdulilah dee sidaad idinku gaabantihiin unbaan aniguna u yaabana labadayadaba dee waan shaaksanahay because imagekaygii baa suuq ordaya laakiin physically iyo emotionally waxba ma qabo wada u fiican maxaa kugu daran oo aa isleedahay saameyna oo aa ka baqaysaa oo ay arrintaasi ku geysan kartaa wallahi Soomaali baan nahay Soomaalina waa taqaanaa kaliyaati anu waxaan diidanahay oon doonayo iminkana inaan ka hortago sheekadan siday xaliga u bilaabantay dad badan oo caytamaya ayaa midiyaha jooga oo qaarna aniga caynayaan qaarna ay isaga caynayaan aniga isaga laba reer oo ishuwan ah oo halkan markay noqoto social media nadiirka iska taar markay dan kala noqotana iswalaashada baan kasoo jeednaa markaan dee reer kaliyaati waxaan ka cabsanayaa inay tiimam soo baxaan oo la yidhaahdo tiim tusmo iyo tiim cabdi oo hadda iscaynaya anigana reer hebel ahaan la isoo caayo isagana reer hebel ahaan loo caayo taas baan ka cabsi qabaa waxaana doonayaa hal erey inaan ka dhiibto haddaad possible ay tahay iyo goshay dadka doonaya maxaan ku dhahdaa arrintan inay kasoo hadlaan oo ay aniga garab siiyaan amba ay kasoo hadlaan oo isaga garab siiyaan waxaan idiin sheegayaa anaga iska kiin dhow anaga iska kiin jecel anaga fahmiya anaga nolol naga dhexaysa noloshaada arkaysiin baaba naga dhexaysa marka waxaan doonayaa inaan kasii hortago dadka qabiil ahaan arrintan usoo galay ilaa xalay sheekada bilowday please waxaan idin leeyahay hana kala xigsanina aniguna eedadiini habareertiin walaashiin inantiini baan ahay isaguna sidoo kale waa inankiini waa walaalkiin waa wiilkiini so just baatadan labadiinaba waa waxna soo wada gaadhay waana wax iyadaba ka dabaalan doono dadka noocaasa ee doonaya inay ku awra kacsadaan arrimahan waxaan idin leeyahay please kasoo galina saafiyo aada u mahadsan tahay ugu dambeyntii bulshada Soomaaliyeed ee halka ka daawanaysa oo ka dhageysanaysa maxaa oranaysaa waan mahad celinayaa dhammaan waan idin mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed saad igu kacdeen sidaad isku daydeen inaad ciwaanadeedii soo celisaan sida ilaa hadda loogu tala jiro dadka ugu sarsareeya Soomaali arti markay noqoto Cabdinaasir Tawra ku jiro markuu arkayba oo soo wacay dhammaantiin waan idin mahad celinayaa qof kastoo isku dayay inuu ii dagaalamo oo aragtida ciwaanadeeda ii soo celiyo qof kastoo arrintan si wanaaga uga hadlo naseexa uga hadlay inta ii ducaynaysay dhammaantiin waan idin mahad celinayaa aad iyo aad baa Saafiyo tusmo u mahadsan tahay